horta waxa weeye waa nasiib daro maanta inagoo dalkeenii 30 sano gacanta ku haynay alxamdulillaah rabbil caalamiin in maanta xamar la yidhaaho doorasho ka qayb galayaan dadka reer Somaliland waxaan ii sheegayaa bal waxaan ay sheegayaan leeyihiin dadka ka socda gobolada waqooyi waxa weeye waxay yidhaaheen toddobiyo konton xildhibaan oo waxa la isku haystaa ka socda gobolada waqooyi horta dadka halkaa tegay waxa weeye waa dad iskoodu tegay konton toddobada la sheegay leeyahay waa xildhibaano kuma jiraan xildhibaanada la leeyahay way ka socdaan dhulbaantiyo warsangeli waxay ku eegayeen qura dadka ku abtisada ciisaha isaaqa iyo gadabuursiga iyo nin gabooyo ah ayaa weeye ay leeyahay waqooyi gobolada waqooyi dadka halkaa ay sheegayaan ciisaha waxaa loo qoondareeyey oo lagu qoondeeyey meesha la yidhaahdo carta 9 xubnood 9 xubnood baa waxaa magacaaba Ismaaciil Cumar Geyle qabiilhaan buu ku magacaabaa reer Somaliland kama socdaan qoladaas wax u jeed 8 bay leeyihiin sooray ciisaha sagaal waxa ka socda gadabuursiga iyaguna dad iskood bay u tagaan cid magacaawda ma jirto isaaqana waxa weeye markaan golaha sare lagu darin aqalka sare ee westay labaad iyaguna waa iskood bay u tagaan waa dad qabiil ku tagay dad dalka iman kara maaha anagu haddaan soo bixi lahaana maanta lamaba ugu hadleynay iyagoo maqan baan ku xukumi lahaa in khaa'imiin qaran yihiin hadda wada aqriisu way ishayaan qolna waxay leedahay cabdi xaashi ha soo magacaabo qolna waxay leedahay mahad ha soo magacaabo aba khadar maxay dad ugu kala duwan yihiin waxay ku duwan yihiin qolna waxay gacan siinaysaa ay doonayaan inay codka siiyaan ninka farmaajo إذا أقتين على ود قبا تي محمد سالي كويته عبد حاشي يقول له صحيح قبا نكاس هل فيدو إسكدا سومالانه سومالي ورمو كو هيا دباتو خطر قليني أيو ونكا يكسر تلقى شيء إنه عندما ورسله وبدها سومالي ده ووضع شيء قعدت وقال أفرد كوساحي ونكا يكسر تلقى شيء إريتري يقول هاي ستا jabuuti oo Soomaaliyeed inuu ka qaado cunaqabayntii uu la saftay horta qolkaasi la safantay wax qabiil ma jiro wuxuu dhan waa meesha uu tagay naga inuu matalaan in lagu murmo ma in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday baa la isku haystaa inagii baa aamusan marka aamuskaaga waxa weeye in aamusan baa lagu meheriyaa baa إن واحد حكيت شلون بالمودي ما راح نلاقي هاي الدولة قرياشة أرنتن وين لقاها الله الدوك الله قراء وهي على صوص سارة إن أنا دتك شوقة حمر سيدا وصو شقة دونتي ما كان سا فرماشة كل شدة ستة وبدأ حين يكون نقضي أيوة وانا أتجين إن بوسس كا لو بحيد دير وقوي إنه يكون صوت شقيسان يكون هذا لكن وحلا واحد دد بالتلان يعني كذي. sidoo kale gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay Yuusuf Garaad oo dhawaan madaxweyne Farmaajo oo magacaabay ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika badda cas ee gacanka cadbeed u qaabilsan Soomaaliya waxaana uu gudoomiyuhu eedo u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan waxa weeye ka hadlo ninkan la magacaabay Yuusuf Garaad horta waa inuu falxumo mar horena wuxuu magacaabay Farmaajo inuu u adeeryahay ilmaariyaha la ila belel maanta Yuusuf Garaad horta dhulkan la sheeganaya waa badcas watiina waxa weeye in golayaasha guurtida iyo baarlamaanka soo saaraan oo ka hadlaan arrimahan in laynagu socdo dushayna laynagu dulshaxayo in ka hadlaan gobolada waqooyi waxay ugu yeediyaan wax gobolada waqooyi aan jirin
dadkaasi dad ina matalaan aan ahayn wayna ka hadashaa badda cas inay nagu leenahay oo inanka ila caabi waa ku dhashay ree caabi waaqi inaanu baddeena aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil dhanka kalena gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay laakiin qofku leh war iska ninkan inkastoo aanu Soomaaliya taageersan haddana waan ka soo horjeedaa in la xasuuqo wax la yeelo iyo mid taageeriye kii in xasuuqiye ninkan maanta Cabdi Yuusuf shalay talaha xoog lagu soo sameeyo horta ninkaas marka idaga waramo waxa weeye wuxuu ahaan jiray laamadaayo haysan jiray doobiilu ahaa jawhar buu ka ahaa markaasaa uu galay guulwadayaashii Maxamed Siyaad Barre markuu siyaad ka yaabay sidoo ninkan qabiil uu yahay ayuu soo dalacsiyo ilaa wasiir ku xigeen buu gaarsiiyay maantana inuu hanjabeynay wuxuu weeye laba waxba uu ka helay USCO da u suurtagelisay inuu haddana maanta inankii uu adeerka Maxamed Siyaad Barre inta codsiyaan fiila Soomaaliya geliyaan oo isaga ka dhigto la taliye taas waa suurtagashay haddii kale wuxuu ku baqtay lahaa Burtinle ayuu ku baqtay lahaa inuu xamar joogo ma xaraam bay ka hadlay iyada inagoo ilowni godobteeni oo isaga in badan oo caynkaas oo gamcaha dhiiga ku lahaa dhiigana gamcaha ruuteena dhiig ku leh ayaa adduunka iyo xamar meelaha daadaashoonaya